arinta colaada sool iyo sanaag iyo cayn December dhamaadkeedii last year bay bilaawatay kacdoonkii laascaana ka dhacay xilligaasi shirbaanu xamar u joognay madaxweynaha iyo markuu barnaamijkii kacdoonka ahaa shacabkii reer laascaanood ay ka dhiidiyeen xasuuqii iyo dilkii lagu waday dadkoodii wax garadka ahaa iyo hal doorkoodii maalinba habeenba mid la qalanayay waxay noqotay arin runtii qaraar loo Puntland inay dawladdu ka tashato la isaga yimaado la fiiriyo ay noqotay alxamdulillah dadkii waa is abaabuleen markay arkeen inaan waxba lala harayn xasuuqaasina uu yahay mid aan runtii maata iyo magaalo iyo dad waaweyn iyo midna aan la kala soocayn oo just dad la taarget gareynayo la xasuuqayo madaafiic la dhacayay taas baa waxay keentay in la is abaabulo dadka deegaankaas deganaa sool sanaag cayn iyo khaatumo waxa way guddi bay sameysteen waxay dheen guddigaas aan ku gowracanahay dadkii deegaankaas hadda waa garanaysaan dhulbahantiyo faqashini waxay yiraahdeen magaalada waa difaacayna dalkayna waa difaacayna caalamka wixina taageerayaan hana taageeraan waan iska dhicinaynaa Somaliland iyo SNM dawladda Puntland waxaanu ka tashanay waxaanu yeeli lahayn waxaanu go'aansanay inaanu mowqifkooda taageerno guddidii ay sameysteen naan taageero kadibna taas waxay keentay garaado 15 sano magaalada ka maqnaa inay yimaadaan tala ballaaran ka dhacdo garaadadii deegaankaas lahaayo dhan isugu yimaadaan kadibna halgan rasmi ah oo grassroots oo dad dhulkooda ku xoreysanayaan oo meesha ka dilaa annagoo ka dawladaha marka Puntland kuma jirno oo colaadaan oo qayb ka manihin balse de waa garanaysaan dadku waa deegaan iyo dhalasho weeye waxa weeye dadkii 250 kun oo qof dad gaaraya laascaana ka soo qaxay waxay ku soo qarxeen waa deegaankii Puntland oo dadkoodii deganaa magaalada Garowe ugu horeyso 125 kilomitir oo jirtaan u maleynaya dawladdu waxay ku qasbanaatay guddi degdeg inay magacoodo madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddiga gurmadka ee laascaano ama sool sanaag iyo cayn wasiir Cabdi Faarax Saciid Juxa gudoomiye waxa ku jira culimadii baa ku jira waxa ku jira Sheekh Maxamuud Yuusuf waxa ku jira dadkii wax ururin jiray ku caanaha oo dadka caqabadka oo Fuaad iyo kamid ah guddigaas wax badan buu qabtay dadkii wuu liis gareeyay dadkii baa la dajiyay guriyii baa looga baxay dhaawacii baa isbitaalada la dhigay isbitaalada private-ka ahaa baa la furay gurmad adigu de rasmi ah wala la harin baa ka dhacay dawladuna qayb weyn bay ka ahayd guddigaasi waxa hooyay oo uu ku shiraa oo martiyay wasaaraddeeda anaga u furay xafiiskaygii waxay ku shiraan howlkii wasaaradda waxay sameysteen center la yiraahdo situation room oo international community aan ugu yeerno xafiiskayga Soomaaliya center waxaan geynaa situation roomka oo aanu qofkii xalay dhintay kii dhaawacmay kii barakacay meesha la joogo epicenter ku meelaha ay yihiin oo ha ugu badnaato inta u dhaxaysa laamiga zona tukaraq dhinaca kalena kala bayr ba dadka waxa uu ahay meeshii loo qaxay oo ugu horeysay oo dadku gaarayay halkaas aanu bilownayna international community u dirno hay'adaha u dirno NGO-yada u dirno for the first time na Garowe laga aado Sool sanaagan cayn muddo 20 sano laga joogo guddidii baa diiday wixii ka imaanayay Berbera iyo Hargeysa inaysan u iman oo siyaasadaysna ay noqoto in mucaawinada international community u bixinay inay soo marto Garowe toosna iyaga loo gaarsiiyo anaguna waa pressure gareynay waana ayidnay waana taageer marka siyaasadda dawladda Puntland waa la socotaan waxa weeye in anagu aanu taageero u ahaano dadkaas dhibaatadu hayso iyaguna istifaacaan waana runtii ugu hiilanayna in dalkooda iyo dadkooda difaacdaan su'aalaha la isweydiiyaa siyaasadeed baa la isweydiiyaa oo ah Puntland miyaysan ka mid ahayn maxay u ahaan waayeen waxaas la kaga sheekaynmayo Puntland Sool sanaag iyo cayn of course waa kan dastuurka ka mid ah laakiin se waxa way Sool sanaag iyo cayn Puntland waxa ka mid yeelay oo keenay waa garaad Cabdiqani iyo garaad Saleeman Bahayn garaadada hogaaminayeen iyo garaad Abshi Saalaxiyo maanta waxa laascaano joogo dagaalamay halgamay waa garaadada wiilashoodii weey waa ku khasbanaa marka inaan yeelno waxa ay rabaan wiilashooda go'aankooda shaqeynay Puntland dad isku tagay wax ku darsaday ahaayeen dadkiina qayb baa go'aankooda rabnaa inaan dhageysano la dhageysto
waxay ku tashadaan oo go'aankooda noqdana aanu taageerno saasina dowladda Siciid Cabdullaahi Dini qabtaa. And in fact taas baa keentay in for the first time 15 sano maanta laascaan ay xor tahay maxaa yeelay marna dadkan looma ogola inay danahooda ka tashadaan waxyaabihii ay Puntland isticmaali jirtay Somaliland isticmaali jirtay waxa weeye systemkan dowladda ku salaysan oo xuduudada ku salaysan dadka uma shaqeyn ma anficin waa ku kala qaybsameen midnimadooda waa kala tagtay laakiin maanta midnimadooda bay heleen inay masiirkooda ka tashanayaan iyagu taas way mid halgankeena salawa taas way mid raasumaalka loo runtii hadii alla idmo ay guusho ay ku sii jirayso hadii alla taas intaas aan uga baxayaa waxaan yar ku sii darayaa waxa weeye international community anagu dhawaan baa Nairobi kula kulanay arintaana waa kala hadalnay Soolan Sanaag yacayn mowqifkeena dhinaca humanitarian iyo dhinaca siyaasadeed baa u sheegnay xalkuna wuxuu ku jiraa Muuse inuu ciidankiisa kula noqdo xuduudihiisa waa yaqaan xuduudihiisa dadkaan degaankooda uga baxo ka bacdina la wada hadlo anagoo taasaan ayidnay international community waa la socotaan safaaradu dhammaan markii dambe way mowqifkaas soo saareen in sidaas ay dhacdo